Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Abdi's again. My name is Khalik and I have my co-host with me, Abdul and Hamza. And today we have an amazing guest here for us that would, waxyaalahan ka hadlaynay waagii hore maaragtay annaka we were not professionals waa nii sheeganay awareness na keenayna and today waxaan keenay qof oo professional ah oo deal with this day to day. I will let maxaa la jira Khadra introduce herself and tell you guys more about her and say a little bit about herself. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. دمانتين مقعي waxaa la yiraahdaa Khadra Khadra Ali Mohammed. I am waxaan ahay a doctorally trained psychiatric nurse practitioner oo degan wadanka Minnesota especially magaalooyinka suburban ku hareeraysan waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogo waan isku dayayaa intaan awoodo inaan Soomaali ku hadlo audience waxay isugu jirtaa bal igu yiri Soomaali iyo dad English ku hadla haddii ay noqoto inaan English ku dardaro nature takes its course so ii dulqaataya inshallah. Thank you for coming. It's a pleasure having you. Thank you for coming, Qadra. So actually the kuwada waxay tahay can you tell us about your journey into mental health and psychiatry? Yes, thank you. So it's been a long journey. Waxa ahaa safar dheer buu ahaa waxaan ahay anigu yani halka wadankan waxaan joogay ilaa 25 sanadood alxamdulillah markaan saa u yimaba yani guri maan lahayn bay ahayd markaad timaado waxaad raadsanay shaqad u baahan tahay and then shaqooyinka entry level weeyaan oo hawl badan yihiin so waxa lagu yiri ta ugu fudud shaqo ku helayso lacag fiican lagu siinayo oo democracy nolol maalmeedka ku hagaajinayso waa inaad healthcare ka aado so waxaan isku dayay inaan medical assistant noqdo school baan tagay marka schoolkii aan tagay oo medical assistant markaan noqday waa la sheegay marka sababta anigu healthcare ka baqi jiray because qalliin iyo waxaas iyo waa ku dawaqaano so waxaan waxa lagu yiri medical assistant ku office-ka joogaysa dadka su'aalo weydiinaysa waa room garanaysa marka clinic tagto dadka qaada waxa weeyaan soo caadi dhakhtarka u sii diyaarinaysa taasaan sameeyey and then got me to clinic inaan dhakhtarkii arko la shaqeeyo dadkaas marka waxay igu yiraahdeen Khadra waa ku fiicnaan lahayd inaad sii advance garayso education-kaaga sidii baan markaas sameeyay RN noqday and then markaan RN noqdayna aan ku shaqeeyna dadkii aan la dhaqmaadin xoogii Khadra jaamacadda aad wax ka dhigtid aad yani Allah you guys waxaan rabaa dhalinyaro baatiin inaad ogaataan dadkaad ku hareeraysan tahay ayaa passion-kaaga ka soo saaraya so journey-gayga waxa iga caawiyay dadkii aan ku hareeraysnaa nolosha Mareykanka oo iska adag oo u baahatay inaan wax barto and then mental health specifically accidentally waan u galay waxaan uga jeedaa taas markii aan graduate gareeyay waxay ahayd 2010 nursing school ka graduate gareeyay as a associate degree in nursing practice waxaa jiray economic depression oo shaqooyinku way adkaayeen la helo shaqo waan ka waayay isbitaalada passion-kiga waxaan med search inaan ka shaqeeyo waxaas waa waayay shaqooyinku way adkayn la helo so nursing home baa shaqo ka helay nursing home markaad ka shaqeynayso it's very busy you are laga dhigay responsible about 40 clients and the staff you kind of incidents happen you're responsible for making sure that everybody's safe while also taking care of your own assigned patients so it was hard so I did that for about I would say 11 months or something and then I'm one of those night owls so I was trying to look up email baan raadinaya and waxa arkay email state ka dartay oo leedahay waxaan raadinaynaa neersiyo ka shaqeeya there's a state hospital ku yaala Minnesota oo psychiatric hospital oo dhaho anoo ka Metro Regional Treatment Center AMRTC I think that's the name waxaan apply garanaya stigma jirta mental health ka waxa lagu oranayaa qadad la shaqeyso asamina waqal qof ay igu yiri waxaan ku wax kasta ka wanaagsan intaan tagay anigu so I applied I got hired and then while I'm in it waxaan like amazing because you see someone in crisis and the way you approach that person can calm them down like qof kacsan oo magaraysa xanaaqsan oo aad arkayso inay aanu wax sax khaladaad badan galayo markaad awood u yeelato inaad qofkii dejin karto waxaad ogaanaysaa xagee waxaas ka timid how did I do that aniga isla yaabi jiray and then I don't get stressed too much about it waan jeclahay hadalun miya hadlaya Soomaali baan u ahay sidii yani from there on I loved it so that's how it started Mashallah. That's a beautiful journey. So what motivated you for your focus to be on kids? On kids, that's a good question. So I became a parent in 2003. And raising kids in the United States, coming from a different
culture comes with its own challenges. And also having been in the healthcare and ku jiray caruur korinayo waalidahay guri leeyahay yani there's a lot of hats you have to wear walaalo aabahay familygayga way joogaan halkan wixii oo dhan baad maqaraysaa jagal garanaysaa and then waxaa kidska igu basically aan u jeclaaday inaan ka shaqeeyo anaaba caruur korinaya I want to understand my own kids and then waxaan arki jiray yani shaqo meel badan baan kasoo shaqeeyey public health baa ka mid ahayd shaqooyinkaa qabtay markaan cisbitaal ka shaqeynaya and then public health waxaad arkaysaa I would go to guryahooda dadka tegi jiray assessment I used to work for Hennepin County as a public health nurse go to people's homes assess people and determine if they need services so one of those like the families that I would go to is like family dhan baan assess gareynaya caruurtii baa dhibaato ka jirta laga yaabaa so waxaan arkayaa ilmo yaroo aad arkaysa inuu baahan yahay caawimaad oo aan dhakhtar la geynin oo reerkii la tacaalayaan qolo kastaba leh innaga ugu liidanay badanaa oo la leeyahay wuu iska degi doonaa ilmaha aad aragta clearly waa dhibaato haysataa waxaad arkaysaa ilmo over medicated ah so dadka dhibaatadooda markaan arkay caruurta fahmaysa yani marka ilmuhu ka xanuunsanaya anigu waalid baan mogtahay it's a big deal it impacts the whole family waxay impact garanaysaa caafimaadkoodii shaqadoodii inay qabsadaan waxaa laga yaaba hooyadana shaqada ka tagto abuuna shaqada ka tago inay familiga isku kacan baa dhici karta because ilmo aad dhashay baa xanuunsanaya so waxaan yani haddaan iskuul ku noqdo waxaan baranayaa caruurtaan la shaqeynaya and then yani sidaan hadda markii dhow idiin sheegayay meeshaad ka shaqeysaa usually ku influence garaysaa cisbitaalka stateka adults buu ahaa within a year markaan ka shaqeynayay I applied to another job where I work with kids so I got accepted to that position so I was working in a psych unit for kids so that's like okay now everything clicked so I wanted to learn more. You know, you do something and it's just you want to advance. That's basically what led me to it. That is amazing, especially when you said عروت مركي حنوسين it impacts the whole family. That is true. I understand as a father I could have a plan maanto dhan but then waxyar ilmiga duu ku dhaco oo maartaan wix noqonaya I have to cancel all of that. Marka to point that how does the children affect the environment of maxaa la jiray family-ga iyo maxaa la adolescent-kooda how does that affect their well-being and their mental health like an environment where dadka oo maartay family-ga ku jiraan the home impacts the adolescent and the child you know waxaa jirta family systems theory la yiraahdo lagu baro magaranaysaa markaad caafimaadkan baranayso iyo anything has to do with psychology and psychiatry understanding the mind the human mind ilmaha guriga dhaqankiisa uu saameynaya hadduu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahayba so waxyaaba baa jirta you don't choose to get sick right it just happens right it's how you sidaad u wajahdo dhibaatada kugu dhacday ayaa muhiim ah wajahadii way adkaanaysaa markii ay adiga dhibaato ku haysato ama yani aadan fahansanayn waxan waxa uu yahay de maxaad wajahdaa jahli baaba ku ma haysatid and then yani aqoontii aad ku fahmaysa ma haysatid sax dhibaatada kale inaga inoo wehelisa oo in kaga duwanahay mujtamacyada luqadoodu first language-koodu tahay Englishka waxa weeye luqadii ba at least ku hadlayaan so they can research raadiyaan and they can seek help and then explain themselves way sharaxi karaan intay raadsadaan resourceski ay sharaxi karaan dhakhtarkii hooyada Soomaaliyeed ama aabaha Soomaaliyeed yani ma awoodo so wuxuu leeyahay maxaan sameeyaa dee garan maayo waxa kan haddaan la hadlo ama wax kale igu noqotaa and then you resort to your own devices which are lacking magaraysaa dhibaatooyin yani waxa dhici karta haddaan example soo qaato caruurta maxaa la yiraahdaa firfircoon aan dhanano oo orodka badan oo sahdiga ka yar yahay oo ka fiirsashadii feejignaanta ku yarta ADHD baa lagu magacaabaa markii ilmo aad dhashay oo kii hore orodka miskiinka hawshiisa qabsan jiray maqay qaylo badnayn cawaandi yar baa yimi hadda dhashay ordaya islaanti waxa naaqsa xilad waxa kan oo naga fadhiiso adigu wuxuu leeyahay warbuyo kan qof uu ku qaylqaylinayo ilmo yaraa maanta dhan lagu qaylinayo iskuulka tagaya macalinku ninkan ma fadhiisanayo waxba ka siiya dhakhtarka gee waxay leedahay dhaanu dhakhtar geen maayo sax I was going to ask, how do you say ADHD in Somali? In Somali? Yeah, because for me, I just imagine words like my parents used to use for me is qalqali, but I don't think that's the right word for it. So. I think qalqali is the hyperactivity version. So, waxa weeye attention deficit hyperactivity disorder. Somehow, attention deficit macnaheedu waxa weeye qof fiiradiisu ama feejignaantiisu yar tahay deficit yaraan attention waa feejignaan sax and then hyperactivity or orod badan
so hyperactivity marka la qeexayo diagnostic statistical manual ka bukan isticmaalo waxaa la socota impulsivity which is quick to make decisions so qalqaali ilowsho badan wax qase ordaya bugta tuuraya hadalka interrupt garanaya hadal badan waxaasoo dhan waa symptomska ADHD ga lagu yaqaano Okay. marka waxaan ka wadaa ilmahaasi hadalka faraha badan oo qaylinaya dadkii waalidka wuxuu isku dayayaa wuxuu haystaa inuu iska yeeliyo ilmihii maanta nasaxaya correction baa lagu sameynaya macallimiinta baa saxaysa ilmihii marka wuxuu internalize garanaya ama bad kid so aniga markay ilmo aan assess garanayo qolka kasta baa carab maxaa la yiraahdaa race kasta ha ahaado hadday dhahaan I'm a bad kid waxaa dhadaa ADHD baa jirta because it's a hint you know because they internalized it because the environment made them believe that wixii lagu dhahay mar walba ay aaminsan yihiin de arkaan waxay sameynayaan maanta waad xuntahay lagu leeyahay oo aaminaya waad xuntii aaminayaan so marka su'aal follow up question aha ma garanay caruurta hortooda Soomaali haddaan nahay waxaan dhahnaa cabsi baa caruur korisa macnaha waan garacnaa wax haddii aan ku aragtay hataa mar qaarkood waxaan waxba ahayn baan ku dilnaa caruurta so marka cabsidaas baan ku korinaa caruurta adhow sifo maaragtay mar waxay tolerate garanayaan haddii aad waxaan samaysid waa lagu dili iska daa laakiin oo ma daynayaan waxaan haddaad samaysid waxaan baa halaabi fikradkii oo saa usii fikir lahayaan waan ka celinaynaa instead waxaan ku korinaynaa cabsi so marka how does that affect caruurta iyo markay yar yihiin maskaxdooda markay weynaadaan wax aad ay si xunba u saameynaysaa because ilmihii waxaad ka dhaadhicisay inuu adduunka dhan mid laga boqo yahay oo wax kasta fear based way wax kasta in laga boqo so qofkii xitaa paranoia kugu dhici kartaa tiraado okay muxuu igeegaya oo qof walba waxa maad khala sameeyay adigiba isku wacan garanaya so you are on eggshell like walking on eggshells maxay yiraahdeen sidee inaad maxaa la yiraahdaa ukunta galalkeeda burburaya allahan burburiya ku soconayso kaleeto yani waa taxadaraysaa mar walba so it can induce anxiety so يعني anxiety warwarku inuu kaa farabato aad always expecting the worst case scenario so biologically waxay kugu sameynaysaa taas stress yani you're worried you're expecting the worst case scenario so your body is wuxuu soo saaraya jidhkaagu hormoonaadka stresska oo la dhaho cortisol levels goes high and when that's constantly like triggered like imagine waxaad qiyaastaa libax yar baa ka soo baxay qofka jira waxa markaan yaraa waxa lagu jira libax baa ku cunaya dadka tii haddaad maanta lagu leeyahay libax baa cunaya de guard baa ku taagan exhausted muscleska ku daalaya maskaxda ku daalaysa ma baran kartid yani ma develop garan kartid awoodii aad ku dhisi lahayd inaad aaminto yani qofka maskaxdiisa waxay ku kortaa in loo ogolaado inuu khaldami karo khaladku wuxuu ku barayaa sidaad u sixi lahayd hadhow toole laakiin markaad always oriented into negativity you're ruined like it can lead to depression anxiety all of it trauma aniga hadda wiil baan dhalay masha Allah so every time aan wax sameynayo waxa u sameeyaa long term ahaan beri ahaan so dad badan arkaa oo family-ga ah oo dhahayo cunigan hadda buu yar yahay beri markuu weynaado asaa wixiisa sameysanayo waa hadda inaad tarbiyeysaa oo ku tarbiyeysaa suu hadda yahay iyo wuxuu qabanayo iyo wuxuu sameynayo edabtii tarbiyo way jirtaa ma dhahay ilmaha yaa la tarbiyeenin laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay cuniga hadda wixii aad uga cabsiinaysid sidii hadda libaax oo kaleeto qofka markuu yar yahay haddii looga cabsiyo libaaxa markuu weynaado libaax kama cabsanayo laakiin feerkaas wax kale isku bedelaya libaaxi wax kale u noqonayo markuu weynaado so waxay noqonaysaa hadhowdii social anxiety cuniga inuu helo in uu dadkii wax uu asaga xaqiisa uu dhacsan karo inuu ka aamuso so marka ma isleedahay communitygeena intii ku fikiri lahaayeen cuniga intuu yar yahay just u kori markuu weynaado waxaan asaa samaysanaya hadda horta bal cunug fiican oo dhib badneen oo aamusan oo dadka maqlaayo oo dadka dhageysanayo kori hadhow markuu weynaado waa maxaa la dhahaa asagiyaa waxaa sii raacana maskaxdiisa shaqeynayso so mislada cuniga wixii ku korisid yaraantiisa weynaantiisa sidii wixii ka celinaysa bis waxyaal caqabadayaal kale maa la dhahaa situationyaal kale baa keenayo oo cunigaas hadhoodii uu iska protect gareyn waayo yani waxaanu khalad ka fahansannahay disciplineka waxa uu yahay waxaynu khalad ka fahansannahay tools ka isticmaalayno waxa laga yaabaa in toolskaasi u shaqeyn jireen libaxa in laga bajiyo because libaxyaa jiray mi baa la joogay ona skill so laakiin halka the other thing yani I think about this because I see kids moogtahay waxa kaloo jiray ilmaha marka la cabsiinay Soomaaliya
wuu ogaa inay cabsida tan mid runa iyo mid beenay kala jirto because outlet baa jirtay ilmaha lama celcelin jirin guriga kuma koobnayn dibad baa jirtay asxaab baa jirtay waad ka garanaysay yani hadda carruurta markaa eego sana classka run bay moodaan ilmaha soomaaliga beenta daqiiqad buu ka ogaan jiray been looma sheegi karo halkan waxaan la midnahay dadkan la joogno society-geena so haddii aad isleedahay ka cabsiya wuu ku fahmi doonaa inay wax kan iska cabsin tahay don't assume that. And the other thing is age appropriateness baa jira ilmuhu markuu yar yahay wax uu fahmi karo iyo wax markuu 7 ka yar yahay wax 7 ka weyn yahay oo kala duwan tahay developmentalkeena milestone-ka waa inaan fahno muxuu awoodda ilmuhu tahay markuu sanad jiro wuxuu u baahan yahay a lot of attachment a lot of love a lot of connection ay ku fahmaan you care that you don't magaranaysa inaadan jacaylka ilmaha u qabta aadan condition ka dhigin markaad wanaagsantood wax fiican si fiican u dhaqanto ayaan ku jeclanahay haddaad tiraahdo wuxuu leeyahay okay haddaan wax xumeeyo ama soo xumaatadii failureka dhan buu ka fogaanaya so self esteemka baa yaraanaysa so it's a big deal that you need to naturally not scare this kid like ha ka bajin ilmaha baqdintii adiga lagu soo koriyey berigaasay shaqayn jirtay I don't know how it worked like there has to be studies to be done wallahi wuxuu ugu dhaca isla shaqayn jirnay wuxuu dhahay ilmahayga saa cunto u siiyo markay cunto cuni waayaan garaashka hoos baan ku xiraa halkaana damiyaa so marka wuxuu dhahay mar walbeeto cuntada dee cuni waayaan okay garaashka aadaysa andha cunigi markuu xulay okay waa cunaya marka waxaa dhaha why saas u samaynaysaa don't you think cunigan garaashka ku xiraysid mise waxaad marka wuxuu dhahay it's either one way or another inay cuntadaas cunaan ama inay garaashkaas uga cabsiyo so garaashkaas wuxuu iga caawinayaa cuntada inaan siiyo marka waa macnaha shotkaada qaadanaysaa cunigi nafaqadiisa iyo koriskiisa u sameynaysid but then shotkaas hadhoodii in a long time cunigan u damage gareynaya adiga kama fikiraysid beri dadka badanaan waxaa u malaynaya waxay leeyihin war you know cunigan hadduu weynaad maxay intuu yar yahay baddaan koriyo markuu weynaada saa iskorinaya la leeyahay laakiin damageka maskaxiyan ee u geysanayso ma ogin so questionka kaleta aan qabo waxay tahay what are the some positive ways community can support mental health and well-being in young people? يعني then there is a lot of ways the family what ways can our community help young people tend to their mental health taa atiri hada yani wax aruban koriye wadanka koriye ilmaha ugu weynay oo 20 jir ilmaha ugu yar oo 12 jir waxaan arki jiray hooyooyinka Soomaaliyeed inuu ilmuhu burnaado oo jecel yihiin waxay marka they focus inay cunto siiyaan sidaa kaleeto inuu cunaa muhiima haddii kale meesha qocdur ku galaya maybe cuntada siinaysaa khaldan wuxuu ku didaya exactly and then meeshanaad ku xidhaysaa trauma maxay tahay trauma qofku markuu waxa weeye waxaa lagu qeexaa it's being in a overwhelming state event that waxa kugu dhacay wax aadan awoodin inaad ka dhex baxdo ilmaha imagine qudcurka ku dhex jira ma ka bixi karo that is waxa dhaawaca keena that is like a car accident Soomaaliya maxaa lagu dhahaa claustrophobic maxaa lagu dhahaa baqdinta meesha qudcurka dadka baqa oo meesha xidhan waana ka bixi karin and yani any event that's too overwhelming for you can damage you psychologically so ilmahaas meesha uu ku jiro waxa laga yaabaa hadhow inuu isu bedesho traumadii oo ah the long term oo ah hypervigilance maanta antenada taagan hyper arousal haddii dhinaca laga dhaqaaqo boodaysa avoidance inaad iska ilaaliso waalidkii wixii iyo wax kastoo la associate karaya it's a symptom of a trauma your mood changes it can lead to depressive symptoms bay keeni kartaa oo sidii inaad magaranaysaa moodkaagu dhacsan yahay ay kaa dhigaysaa so su-aashii haddaan kusoo noqdaa maxaa community qaban kartaa si ay dhalinta u caawiso mental healthka isfahma ogaada qofku marka uu ficil sameynayo ficilka waxbaa ka dambeeya waxbaa wada judgment kan faraha badan oo qof walba assume garaynayo wax kasta inuu ilmuhu iska yeelyeelayo hala iska ilaaliyo yacni ilmahaasi korriimadiisa waalidkiisa iyo gurigiisa ayuu aad ugu baahanya markuu korayo but also wuxuu u baahanya communityga ku hareeraysan inay wanaagiisa ka shaqayso so hadalladayna carruurta kula hadlayno sida aynu u analyze garaynayno xitaa dadka maaragtay take it to the social media oo ka hadla dhallinyaradii waa dhacday oo halkan ka dhacday yani words carry a lot of weight so be responsible baan lahaa anigu mas-uuliyaddaas qaada oo haddaad doonaysa inaad wax wanaag samayso xumaatadii adigoon qarqarinaynin wanaagga ku xeji so yani waxa wanaagsan ay samayn kartaan communityga ugu yar anigu in laysku duubnaado oo la sameeyo meelo dhallinyarada la geeyo oo ay develop garayaan oo ay yani they're allowed to fail they're allowed to explore magaranaysa ay wax inay markaan dhallinyarada hayn intaan guri ka baxno
hawshayda markaan fulino guriga gabdho guriga ka shaqeeyaan baan carri jir baraan ku bixi jirnay waxaan doonay soo dhulkaas soo carari jir waxaan doonay soo sameyn jirin guriga ku soo noqonaysa dhalinyaradu saas ahayd you are allowed to fail nobody would know if you fail and then wiil walaalkay maalin maxaan aaday aroos baan aaday waan dhiyo markaas iyo hooyan ku sheegaya bariga dhabi guri jir hooyan ku sheegaya blackmail waxa looma ogola dhalinyarada ku horeysa gabdhaha iyo wiilasha ah waxaan ku dhihi jiray alxooda ku siinayaa hooyo sheegay so hadda dhalinyaradeenna everybody is scared like waxaa la dhahay oo gaaladii u raacay halkan uu ka dhacay sidan u labistay they focus on the little things when there's a bigger fish to fry oo yani diintii baa qarqiir ku jirta society ku caawin jiray ma jiraan diintu waa protective factor it helps you waxay ka caawinaysaa inaad yani depressionku waxaa ka mid ah one of the symptoms uu leeyahay loss of meaning loss of purpose inaadan macno ku samayn nolosha maxaan u noolahay maxay tahay halka u joogaa adduunkan macnuhu leeyahay maxay haddii hooyada aabahayba sidan ila hadlayaan muxuu yahay diinta marka waxay kusinaysaa ilaah baa ku jecel haddaysan biniaadanku hooyada aabaha maaha perfect biniaadanka waxaa loo sameeyey to make mistakes so it gives you to be grateful and to be patient with yourself and others so inaad diintii ku magaranaysaa caruurtii kusoo sajeecsho aad create garayso culturekii ahaa iyo environment iyo space to make mistakes and grow holistically waan odhan lahaa Actually, this is a request from a friend of mine. She wanted to know what advice would you give to somebody, like a young person that struggles with confidence. You know what I mean? Or like maybe, I don't know, it's maybe the environment they grew up in, or they just have social anxiety, but they want to start being confident within themselves. So within themselves. Yeah. Confidence is like, it's foundational. It's something that we need to do things. Like when you're not confident about fulfilling a passion of yours, you're impeded, right? You hold yourself back. So I think the way to go about building confidence is doing something like little by little, and then like what I was thinking about, when I was trying to, become a nurse, all of that, I did not have the confidence to become a nurse. I was encouraged by the people around me, and then you figure out yourself. The things that you do, you surprise yourself. So you put yourself in situations that allow that healthy environment, healthy people who are there to help you. That could be found in place of work, a place of worship, your friends, and then just keep doing it and seek novelty. Sometimes novelty, your brain is in maskaxda soo saaraysa in maxaa la yiraahdaa growth hormones يعني maskaxda mar kasta oo aad hatta marka safar gasho oo kaleeto so energy badan ma soo yeelato ma soo noqotid maxaa keenay taas waxa weeye wax cusub baad aragtay maskaxda is rewiring wax la dhaho epigenetic baa jira oo neuroplasticity maskaxda way isbedbedelaysaa so those new experiences are giving you strengths that you didn't have before. In my biology class, I think the way I understood epigenetics was like whatever my grandparents were feeling, it gets down past to me. Is it something like that? Yeah, the genetics does carry on. Epigenetics is like environment bringing out things that were dormant in prior generations. That's how I understand it. So يعني hadda maxaa dhacday waxay nagu badan ADHD-ga waxay nagu badan bipolar-ka waxay nagu badan psychosis-ka. Why is it happening? I think we're closer to like hunter-gatherers populations. My civilization doesn't mean that we didn't have civilizations, we did. But it was more nomadic lifestyle, more like close to nature. And there are animals that are found in Somalia that are not found anywhere in the world. I heard. I can't prove it. Somebody was saying it. There's truth to it because Somalia is not explored. There's a lot of resources out there. صح. The people who live there. There's also fruits that grow in Somalia that don't grow anywhere else. My dad was telling me about it, and I was just like, oh, I would love to try some. Exactly. Dadanka, because I was in my 20s, markaa ka imi Somalia waa laga qaxay surrounding regions aan joognay, laakiin dadanka cuntada, khudradda, hilibka, waxaasoo dhan hawada xitaa. It's different. Isku mid maahan. Saxa weliga ma ursatay Mareykanka. Saxa ma taqaan waxa la dhaho. When a rain the rain happens, the smell of the rain. Arafka saxa la dhaho waqooyiga. صح hees baan ku maqlaa saxada What do you know is? Somalia ku maqlaa Wait, when you say waqooyi, you mean Ethiopia? No, waqooyi is north.
So Somalia, the two like regions. Hargeisa. Somaliland. Yeah. All of it. Okay. يعني the whole region, north and then south, it's the two areas that got independence after Yeah. 1960. A little bit of Yeah, history. magac kale Somalia. waa qaanay laakiin waa iloway. صح. صح. But It's my roob first time doonka hearing maaragtay roob markuu imaanin right before roobku soo diin Ha. you can tell whether it's about to rain or not just by smelling the air. The air. It carries certain odor. Yeah. oo maxaa la jiray biyo ku jiraan xareed ku jiraan so Yeah. marka you literally realize maanta uu roob u da'ayaa just by smelling that. The Yeah. yeah. Yeah, the air. So That's saxan saxa basically. And smell has a psychological significance. People, you don't forget what you smell. Yeah. صح صح. So you know a lot of things. So those memories oo halkaa jiray oo waalidiinteena kusoo korayeen caruurta tan yani markii different stressors dhacaan some yani waxba isbedelayaa. صح. It can be positive, it can be negative as well. Neuroplasticity is something related to that where your brain is constantly changing Yeah. based on the conversations that you're having, the people that surround you, the foods that you eat, the air that you breathe, the life that you live, the toxicants or intoxicants you put your body into, and lack thereof. Or I was the other even one. reading a study that they did on education. Yeah, there's a fixed maxaa la yidhahdaa mindset and a growth mindset. Yeah. So brain always is growing. Some people think school ada and you think, oh, aniga hadan keeni why I'm not smart. That means that brain kada it's not fixed. It's gonna grow. Maybe Yes. this class aku xunta, there's another class aku Exactly. fiican tahay. So instead of saying ani waxaan kuma fiicni, always remember your brain is growing. It's not just a fixed hal meel maaha. It's true. Yeah. And to add a little bit of what Hamza said, the best way, especially for children, to build confidence and to gain confidence is for them to start doing some sort of activities like sports and any sort of thing that they will fail over again in order for them to understand that failure does not mean the end. It just means a lesson for you to move to get better. Yeah. It literally that's what I mean. Because anaka waxaan nahay wiilasha haddaan horta Soomaali ama there's a lot of us oo kubadda markay ku bilaabayaan Yeah. qashin aha. I was among those markaan kubadda bilaabayay darayaan I was qashin. By the time I was in high school, I was the captain schoolka aniga wixigiisii. So marka and there were certain times where ani keligay aan meel aadayo wax iska sameynayo. No one else is there. But just so tomorrow markaan dadka hortago I know a little bit more than aan aqaanin. So marka carruurtaada markay yar yihiin ama hadday weyn yihiin it doesn't matter going into any sort of activities like that involves you to continue failing for you to learn from your mistakes that will rapidly increase your confidence. You know, is it in Japan waxaa la dhahay ilmaha until like 4th grade miya they don't do tests, they don't do schooling. Schoolku waxay u aadaan just to build connection, just to like hang out with kids miya, just to like there's no schooling until 4th grade and then after 4th grade is when they start the test part of it, the school part of it, but in the beginning they just go there to make friends, to learn how to deal with people, how to communicate with people, how to talk to people. Yes. They just teach that and I feel like adun baa isbaraya. No one teaches you how to communicate, no one teaches you how to dadka saa ula dhex dhaqantid is like qofkii dad intuu soo dhex galo qoslaya waru firfircoon yaa laleeyahay ninkan waa nin maxaa la baxbaxsan ma laha qofkii aamusanna waxaa la leeyahay warkan dadka lama wahlo waa wadaqon ama damiin ama you know, so those kind of things can like inaa fahantid waayo qofkan there's a social anxiety miya wax la dhaho oo qofka uu markuu dadka kala dhex galo it doesn't mean that he doesn't know how to talk, it's just that he's not comfortable or wixii maxaa la dhihi jira meesha uu ku dhex jiro saa sheegaysa overwhelmed waayo qofka markuu overwhelmed noqdana wax ka weyn haysto hadalkii hataa kama soo baxaya ama hadalkii uu rabo hataa si kale u soo baxaya. I was also gonna say, nourish your kids, their hobbies, what they're into. It can be art, photography, sports, whatever it might be. If you nourish it, your kid will start to be they will be confident and they will feel supported. But like Somali qaarkood waxay dhahan waxaas waxa lacag kama helaysid, don't do that, waxaas ay dhahan mogtahay. I would just say just allow your kids to be a child, you know, while they're still kids. But my question was, what are some of the negative influence we get from our community and our family that affects our mental health? Say that again. What are some things, what are some negative things like influence that we get from our family or community that affects our mental health? Yeah, everything. I think a lot of things that we talked about, negative things, like for example, hadda waxaad sheegtay Japan
the way caruurta loo raise gareeyo they've done a lot of studies oo yani the teaching modelka United States ka jirta basically what it is adults are dictating how kids should behave Yes. from young age. And then when that happens, a human is dictating how you behave. You're put in a room, told to move when we tell you, talk when we tell you, go to the bathroom when we tell you. Yeah, eat. You are depriving that person the ability to develop their own self at an early age. So the opposite to that is, letting the kid be out there and explore the environment with as minimum supervision as possible. To let them make mistakes. Like there was a book I read by someone who is, well versed in that area, who said, there are playgrounds that are made in a way that the kids are like have to put together some buildings. They have to explore the environment, make mistakes. Adults are out there, but they're not there with them. So if like a kid scrapes their little, body, it's okay. It's not a big deal. Those kids develop cognitively much faster and much better and much holistically than kids who are being kind of restricted. So dhibaatada ay keeni karto inaad ilmahaaga guriga ku hayso is huge. Hadda oo kaleeto xanuunka la dhaho ADHD-ga waa stimulation buu ilmuhu u baahan yahay. So basically they're seeking stimulation. So when you have as minimum very small stimulation marka haysto guriga aadan helaynin waxaad ku ciyaarto oo tooyadii la wada xareeyo guriga maran yahay hadaad qori tutaa war kursigii uga jabiyaa shalay baan soo iibiyey waxa kale ilmihii uu baqayaa waxba ma develop garanayo awood ma yeelanayo and then ilmaha social anxiety ma aha laga yaabaa ilmo extrovert baa jira oo aamus markuu hadal qiimo weyn buu hadlaa xabad kaliya yiraahdaa dad noocaas jira so yani ilmihii waa inaad environment ku koreeyo ilmo environment-ku waa ka badan tahay waalidka iyo guriga inta ku kooban iyo afarta corner soo xidhan environment-ku waa yani your community the parks and maxaa la yiraahdaa badda hadda degan tahay meel xeeba dhulkaas oo dhan skills inaad develop garayso your body physically needs it u baahan yahay jirkaagu jir ahaan maskaxdooda u baahan tahay because khaladaadkii hadda waxaad sheegayso kaleeto you have to fail to succeed fail to succeed so I think xoogaa waxayna dhibka inoo keenaya waddan cusub aynu joogno aynaan aqoonin sida loo dhaqmo apartmentiya loo badan yahay yani you have to take time off inaad shaqada ka qaadato carruurtiisa u geyso park ilmihii markaa waxaad is leedahay you want your child to have better future than you right as the parent we want our offsprings to do better than us that's the the dream of every parent but for them to get there requires you to sacrifice a lot of things so what they're sacrificing is their time to earn like money to cover the rent, to cover the food, not to do all these other things that are also necessary. So we're considering things that are basic as luxury, like going to the park, spending time with friends. It's got deep way, waxun weeyaan. Marka inahdo way dagaalku siyaabo xun buu dadka inoo saameeyay, yani civil war ka inagu dhacay wadanka nimaanay. Inta hadii miyay layna degajin lahaa ba ka fiicnaan lahayn inta apartmentyada laynagu xiray. Yani hataa marka Mareykan marayaraa waxaan ku soo goray meel tuulaha. So tuulada apartment dhadheeri waxaas ma jirin houses leewaay and annaka backyardka wuxuu ahaa literally meel walba laiskugu imaanayo carruurta meesha dhan community isku imaanaysaa literally every galab walba meeshaasaan ku didi jirnay haddaan kubad ciyaaran haddaan basketball waxay doonaa meeshaasaan ku didi jirnay saasaan ku xisay laakiin waxaa dhahday it reminds me of maxaa la jiray kidska markay iskuulka meel la geliyo lagu xiranayo waxay soo xidhisay like I said this couple of episodes ago markaan sidan dhahana dadka mayna aamin camalaha bay dhaheen but laakiin the research that had that like coming out mostly oo dhahayaan this generation kaliyata iskuulaadka mana noqoto is the first generation iskuulaadka oo waalidiintoodii hore imtixaanadooda maaragtay ama maxaa la jiraya IQ-goodii ka yar صح due to technology kaliyata hadda right now Sweden baa ugu horreys waxaas maaragtay inay bilowdo computers iyo technology inay involve garayso maaragtay iskuulaadka ugu horreys hadda Sweden is investing so much in the old maxaa la jiraya style bugaagta la qoray iyo qalimaantii iyo bugaagtii oo like printed books lasoo like la akhrinay iyo waxaas they're getting rid of every technology that's in class. So marka that itself shows us maahan waxbarasho based off whatever that's new. It's always, even though the
قالوا glasska 19 what was it markay bilaawdeen waxa gacanta la taagay fasalka fariisanayo waxaas mar hore bilaaway but then in the 1900s I think it's not too old right you can imagine the innovation dadkii hore soo u fikiri jireen dadka markay class keeneen oo maartay ay bilaabeen industrial maxaa la jiray revolutionka ay ku bareen carruurta ay bilaabeen inay carruurta badan inay baraan amal qof oo worker baan develop garayna instead of someone who actually thinks outside the box because that's literally how all this became to us qof waxaan bari waxaan dhaho sameenayo waxaan halkan fadhiisanayo kacadaan dhaho maarta kacaya oona amarkay bas dhagaysanayo not someone who would ask me maxaan u kacaya maxaan u fadhiisanaya or have a critical thinking outside the box marka dadkii horena you can tell like way ka waxaysan jireen hadda markay arkeen inay brainkii maartay ay sii shringaranayso way ka celiyeen marka hadda like you said a child being another human controlling how another person should be is detrimental to our success but arrinaa jirto oo hadda aranoo tiktok inaa ka aragteen oo maamo Soomaaliya iskuulka cunugeeda waxay ku dhaheen some kind of mental health buu qabaa I don't know specifically wuxuu ahaa xaaskayga ii soo dirtay ayaan dhexdaas videoga adee cunugii markii la geeyay isbitaalka miya mistreatment lagu sameeyo cunugii he's not doing well hadda and so su'aasha aan weydiinaa waxay tahay waalidiin badan waxyaalo oo hadda ani gabadhan abti u ahay camal baa jirto inta ii imaaday dhahday mental health baa ihaayo I'm struggling and hadalkaygii anigii dhan confidence-kaygi waxaygii dhan waa low hooyadayna markaan u sheego ima fahmayso hooyadayna markaan u sheegay waxay dhahday haddaan takhtar geeyo daawooyina iga siinaan waa iga waalayaan so how can we balance dadkii kalsoonidoodii iyo isbitaalkii what do you think it's a good question really good question and I know I think a little bit the event that you are referring to waan garanaya wax xusuustaa yani Soomaali dhaqan bay noo tahay wax markay aragno waa emotions keena aad u sareeyo because we care yani ma rabno ilmo yar oo dhibaato haysato so dadku dhan way share gareynayeen ilmo yar buu ahaa wanmay hooyada geysa dhakhtarka and then dawaa loo siiyay and then mira reaction weyn buu sameeyay oo hadli kar waayay oo yani muscleskiisa xumaadeen xitaa waan eegay dawo qof baa soo galiyay I tried to look it up is an antipsychotic antipsychotic dawooyinka la dhaho waxa weeyaan waa la isticmaalaa Europe waa different names ugu yeedhaan but it's antipsychotic waxa weeye qofka markuu cadhaysan yahay out of control noqdo wax lagu dejiyo dawo lagu dejiyo waa class of medications waxa ay target gareeyaan neurotransmitter chemical madaxa ku jirto la dhaho dopamine ayay target gareeyaan oo qofkii marka uu magaraysa cirka marayo taasay suppress gareynayaan dopamine-ka cirka maraysa ay suppress gareynayaan it comes with huge side effects dawooyinkaasi bay leeyihiin so it has to be you have to waa inaad ogtahay qofku allergic ma ku leeyahay dawooyinkaa side effectska waxaa ka mid ah dopamine-ta waxaa la walaal ah another neurotransmitter la dhaho acetylcholine oo ka wakiil ah sida ay masalladeenu u shaqeeyaan so when you mess with dopamine it can impact the acetylcholine and cause garayso movement issues so haddaad aragto qof dhaqaaqa waaye muscleskiisi wax noqday markiiba so dawada keenta so immediately antidote baa jira lagu duro oo laga hortago si loo waxay yani markii muscleskaagu waxa la dhaho Parkinsonians dadka maartay Parkinson qaar qaba inay dhaqaaqaan dawadu waxay keeni kartaa waxay keeni kartaa inuu qofku sameeyo maxaa la yiraahdaa dhuuntii dhaqaaqa waliba acute dystonia waxa la dhaho murqyadii uu markaa neeftiisa xitaa khatar gasho and it's very scary that's why it's done in a hospital setting where we can do something immediately to counteract it okay not everyone has the same side effect qof walba ma qaato ma helo so it's like waxaan xusuustaa aan rabaa inaan dadka la sheer gareeyo caruurta la shaqayn jiray somaha waxa jiri jirtay dawo la dhaho same class oo Haldol la yiraahdo haliperidol and ayaanu waxaanu isticmaali jirnay as an emergency medicine on our units kids units and then waxaan aragnay caruurta Soomaalida East Africanka we're getting a lot of severe side effects from it all la dhaho severe macna yani rare adverse effects oo aan lagu arag dadka cadaanka iyo dadka wadanka inaga soo horeeyay ayaa inaga lagu arki jiray marka dawada lagu diro dawadaas oo ah a potent first generation antipsychotic Haldol dadka medicalka ku jira yaqaana ilmihi waxaan ku aragnay side effect kala dhaho NMS neuromalignant syndrome neuromalignant syndrome waxa weeyaan a severe and rare adverse effect related to that medicine that if you get it you can die from it so you have to immediately implement intervention
like IV fluids ka qofka waxa kacaya dhikarka ku kacaya xumada ku kacaysa immediately you have to intervene hospital setting ka you can do that so we kept seeing those things that are rare in that community so genetically waxaan kaga duwanahay jira dadka kale ma garanaysaa Okay. so hospitalkii wuxuu sameeyey pilot study we removed that medicine no longer is used in the kids units ma isticmaalno Soomaali, magarate okay. yani caruurta dhan baa laga Okay, joojiyey caruurta dhan, okay. because caruurtaasaa lagu arkay Yeah. there's a lot of Somali Minneapolis ku yaala isbitaalka marka yani taasaa ku tusaysaa yani it's good ina waxyaabahan studyga la sameeyey cilmiga la bartay waxay ku salaysan tahay yani dadkii lagu study gareeyay waa dad ka duwan inaga generically we're very unique inagu so dawooyinka wax laga yaaba inaysan inoo shaqaynin waxaa dhici kartaa يعني dad badan ay u shaqaysana waan arkay maxaa la yidhahdaa dawooyin less potent abaan isticmaalnaa hadda oo ka duwan iyaga oo yani haddaad su-aasha ka jawaabo ah dadka suffering with mental illness I've seen it so many times waalidiintu way kusoo wacaya waxay ku leeyihin inuu xanuunsanayaa waan arkayna wax qaldan yihiin laakiin ma rabo dawada tan inuu qaato because dawo oo dhan waxay la tahay tii wiilka ku dhacday Yeah. mid kasta waxaa malaynaya taas dawo waa very vast psychiatry ama mental illness ama xanuunada ku dhaca dhimirka waa very yani si fiican looma fahansanaa so waan fahansanahay baqdintaasi meesha ka imanayso science waa limited it's only human capacity moogtahay weeye maskaxda bini aadanka ah mindka ma la taaban karo intaad ku egto MRI ma eegi kartid saa u shaqeeyo qofka fikirkiisa ma tirin kartid Yes. dawooyinka kana waxay ku salaysan yihiin wax jirka bini aadanka la arki karo so a lot of unexpected things happen but there is, science has advanced so much that we can treat a lot of conditions, make it better than it is. So, for example, qof depression intuu ku dhacay, kalsoonidii ka yaraatay, gurigii ku soo koobmay, shaqo aan qabsan karaynin, dhaqaaqi karaynin, dadkii ka baqaya, cuntadii cuni karaynin, oo isku xitaa ay gaadho xaaladiisu inuu dareemo inay dalla hadlayaan, cod helhelaya. So, depression, when it's really severe, it can sound like you're psychotic. There's a depression with psychotic features. Qofkaasi ma inuu waxa statekaa lagu eegaa mise in lagu eego dawo suuragal ay tahay inay caawiso I would choose the dawada Dawo Yeah. suurtagal inay you know caawiso. it's a matter of risk versus benefit Yeah. so if the benefit is higher than the risk you take that benefit Yeah. and if that risk happens you deal with it when it Okay. comes So, so waxaan oran lahaa ha ka shakinina not every experience is the same there's a lot of hope out there I've seen a lot of suffering being lifted by medications and you also treat it with lifestyle changes you do a combination of therapy and medicine works in la isku qabado talk therapy iyo maxaa la yidhahdaa different types of therapies and medicine ku yara dheeraaday I was going to ask, what would you say to the parents that don't necessarily believe in Western medicine, right? That they think like Quranka ilahi mooyane wax kale ma taqaana ku caawin kara ma jiro. So what would you say to them? Would you say like balance it out or Yeah. qur-aanka mar raba in laga taga ma aha is qur-aanka haddaa kuu sheegayo raadso qofka professionalka ah dadka ahlu dhikr weydiiya ayad qur-aan oo dhahda baa jirta fasal waa la Ha, dikraa ha, Allah ta'ala. exactly تعلمون. so xaggaa maxaa goormay noqotay inaanu isxidhno yani it's coming from a fear Yeah. waatayanu ka leedha carruurta laga bajinayo maanta dhan Yeah. waad baqaysaa waad ka quusatay noloshii dhammaydba markaasaa u dhaqanto so yani ande waxaa lagu arkayaa markaad tiraahdo maxaa la yidhahdaa qofkan dhakhtar geeya inaad leedahay diintu waxba ma tari doonto maya both can be true at the same time Yeah. you know qur-aanka waa shifa la akhriyo qur-aanka ku jirta dawooyinka oo dhan wax kas marka qur-aanka xitaa ayad baa ku jirta ah cudur maana soo dejin ilaa waxaan soo dejinay dawadiisa Dawadiisa, yeah. ma garanaysaa so dawadaasi yani haddaan taariikh galo mentalka yani waxyaabaha xanuunada dhimir ku dhaca dadkii yani ugu horreeyay xitaa OCD da obsessive compulsive disorder ka istaarigarinaya 9th century Islamic scholars oo ku jooga Iraq ay ahaayeen Yeah. first hospitals psychiatric hospitals were built in Iraq markaad akhrido it's amazing how they were talking about depression then صح. oo xagga kan loo maraynayo A lot witches of- iyo halka islaan yaro xeeramadaba ku haysata ee odhan jiray caddaanka odhan jiray tvna loo wareegnay inagoo hadda soomaalidu Yeah. Yeah, a lot of the medical equipment they use today, a lot of the mathematical has came Ibn from the Sina. Islamic golden age time. Yeah, على سمت. Marka, to follow up your question, Amala, this is it literally puts us to our next question. Anaka Somali baan nahay, a lot of the things hadda oo maartay wadamadan ku arkay way nagu cusub yihiin luqadiina oo ma hayno maciidina oo ma hayno so marka how do languages impact the mental health assessment iyo diagnosis camala yeah it's a big deal
it does luqadii markaadan fahansanayn and waxyaabo badan aad rabtay inaad qofkii u qeexdo dhakhtarka ahaa kuguma soo dhacayaan kasi way ku goynaysaa taa maxaa ingiriis lagu oran jiray adoo isweydiinaya saarkaysa qofkii waxaa kaloo jira waxyaabo that don't need to be said that someone oo kula wadaaga dhaqanka u fahmi karo oraysa halkaasi ka timi aad xitaa markuu qofkii sheekadii wado bad ka dhex fahmaysaa yani waxyaabaha haddaan example usoo qaato delusionska yani qofku inuu aamino delusion waxaa la dhahaa a fixed belief that fixed false belief that can that the person won't accept an explanation that it's not true qofku wuxuu aaminsan yahay wax been oo iska aragto inaanu jirin laakiin kama dhaadhicin karto waxaas waa been inaga delusionskan uu ka duwan yahay kuwa kale delusionkooda because dhaqanka way ku xidhan tahay delusionkan wuxuu dhahdaa waa lay falay dhaqan kartaa hadda if you cannot soo cadayso delusionkan wuxuu noqon karaa religious based waa waswas baa kugu dhici karaa oo weysadii iyo so waa ina context qofku markaan fahantisanayn gaalku marka yani gaalka ma ayaan odhan acdaan muslim baa jiray acdaanka markaad ku tiraahdo maxaa la yidhahdaa shaydaankii baa igu jiro waa la falayo iyo delusion baa lagu dhacaya waxaan psychotic baa tahay baa lagu odhanaya so qofkaas misdiagnose baa ku dhici kara anigoo soomaaliya hadduu ku dhaha waa soo warqadii miyaa soo hesha xaguu ku duuduubay waa weydiinaya falku ma runba ma soo xaqiijin karta waa ka odhanaysaa waxaan kaloo ogahay dadka markaadan aad maarata dhaqan wadaagtaan diin wadaagtaan history wadaagtaan you trust there's trust so baqdintii lagu soo koriyo xogaa wada kala yara dejinaysa because qofku wuu fahmaya baashi laga yara jooji buu ka odhanaya caddaan qofka aadan isku dhaqanka ahayn every movement that you make is analyzed and go ahead no I was like you remember that when you said qofku wuxuu dhahay waa lay falay right like I remember in my childhood I grew up in Ethiopia so I remember in my childhood there was this like older lady ciyaalkayga waxay ku xijirtay like bac madow maaha like a bracelet madow ciyaalkayga ku xijirtay qardaas miya qardaas yes qardaas and also like a black thing she would wrap around her kids waxay dhihi jirtay ishay ka ilaalinayaan and I'm like and they would also go up to scholars and say like ciyaalkayga qardaas u sameeya so just like cultural things. just remind me of that we do things that are weird so unless like we don't know anigu ma idhaahdo inaan ka hor imaado lakin when you kind of believe it so much that you are like you don't want to do anything else that is delusional that is true speaking of that حرسي من هنا وجران like to believe حرسي وحي خلاص I think was the same او ماليني وخرافات باش ما يكون حرنayaan waraqad bay quraan ku soo qorayaan halkan bay xirnaan thinking that waraqadaas is going to protect them from anything the only one that protects you from anything is Allah that's it hadii oo wixii kala jirina I also remember a lady she would bury her kids timhoga their idio everything I don't because she didn't want anything happening to her kids because she said waxaas falka waxa lagu sameeyay weeyaan so way ka qarinaysaa yes nina jiray oo abti camal iguga aadan he was going through divorce with his xaaskiisa and this guy he will literally wuu kheelinaya wuu oonaya wuxuu leeyahay gurigeyga haddii la tago coachka meeshaas dhinacaas waxbaa ku jira meeshaas wax la ii geliyey aniga xaaskayga problem ma qabno dad baa meeshaas wax noo geliyey problemkan waxaas buu ka imaanaya and then meeshii markii la tagay wixiyaa laga helay dadka de like okay problemkii hadda waa la helay weli marka waa sii dagaalooye weli waa sii dagaalayaan dadkii haddana waa la weydiinin kaasoo bixina maxaa qaldan may waxba wax kale ku jiro sariirta haddana wax la ii geli ani marka waan fiir waxaan dhahay don't you guys think ninkan waxaan asaa meelaha gelinayo oo mar walba asii xaaskiisa isku buuqaan because waxa uu sameynayana waxaa waa xaaskiisii abuse gareynaya ilmihiisii aabbo fiican ma aha nin fiican ma aha so mar walba uu raba si xaaskiisa inay isku soo laabtaan wuxuu isticmaalaya excuse kan oo anigaba ma ihiba qofkan qof waa aniga waa sax gurigeyga waxbaa la ii gelay ilmeyga xaaskeyga waa lagu diraa haddaa beentiin uma leysiin meeshaas aada wax ka fiiriya sariirta hoosteed markii la tago warqadaa ku jirta waa kana waxbaa loo geliya so all he needed to do was read Surah Al-Baqarah and he would have been fine exactly marka su-aasha oo ku weydiin rabaa waxay tahay how do we marka dadka ilaan wixiina way jirtaa ma ogtahay hadda especially different generations ala kala yahay dad waxaa jira waxaas aaminsan iyo dad aaminsaneen
quraanka hadda aniga quraanka waa aaminsanahay inaan gurigeyga ku aqriyo ba wixii aan arko waxyaalo waxaa jira that you can see is a fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun alla dhahay takhtar ina u tagtid oo qof adiga ka sareeyo cilmigan leh aad la fadhiisatid aad aadiniyo waxan baa haysta arooska haduu yahay waxan haduu yahay waxyaalo qaarata daawo in lagu sii uma baahnid waxa u baahan tahay professional consultant u baahan tahay marka maadaama adiga aad professional aad tahay maxaad dhihi lahayd dadka oo hadda aaminsan especially dadka waaweyn oo hadda aaminsan oo laga dhaadhicin karin waxaan waa ama waa il ama waa sixir ama qofkan war takhtar maxaad ka doonaysaa waxaa lagu leeyahay oday meeshaana jira u tag asaa kusoo daaweynayo what is your take on that wallahi yani hawl yani dhibaato weeye ish way jirtaa sixirkuu jiraa qur-aankaa sheegay jinkuu jiraa waxaasna wayna ognahay macnaheedu maaha inaad maskaxdaada yani caqligaaga aadan isticmaalin qofku yani marka ay waxa kani soo noqnoqonayaan oo yani waxay kaa caawinaysaa inaad dhakhtar u tagtaa dhakhtarku hadda anigu markaan qof assessment ku samaynayo yani 2 saacadood baan u baahnay inaan qofkaa la hadlo kaliya qofka lama hadlo because marka xanuunada madaxa ku dhacaa qofku waxyaabo aanu u warhayn baa jirta isagu laakiin dadku ay observe gareyn karaan so qofka ugu dhow ehelkiisa ayaan isagana su'aal weydiiyaa caruurtan baan la jooga mogtahay waalidkoodaan su'aal weydiinaya annada saacad kale waalidku waa inaan la hadlo adult hadduu yahay qofka ugu dhow xaaskiisa walaalihii waa inaad weydiiso because insight-ka yani qofka xanuuna baa jira aadan inside haysan as an actual symptom of the condition qof psychotic isma ogeynu psychotic yahay so the person around them they have to be when iyagu noqdaan iyaga u ah qof markuu bipolar yahay in state of mania uu ku jiro isma ogeynu ku dhex jiro waa inuu dadka dhinaciisa ah kuu sheegan sida uu dhaqmaa caawda ma shaxanayo habeenkii dhanba wareegaya alaabtiisii dhanba iibiyey isma og qof markuu state-ka ku jiro so haddaynu kulligoon oo dhan wax walba waa il haddana it doesn't make sense haddaan kaa dhex galo we have to be honest about that soomana qofka markii aa wixiisa symptoms dad qaar waxaa jira markii dhakhtarka ay tagaan qofkii way protect waxaas hadhihin aa lagu leeyahay saas hadhihin hadhihin maxaa la dhihi jira qofkan wuu cararaa mise hadhihin qofkan saa hadda sheegaysa alaabtiisuu gada wixiisuu gada so qofka adi for you to be inaad honest noqotid oo runta u sheegtid dhakhtarkan qofkaanay caawinaysaa intaad wixii aad geedkib garan lahayd because in psychiatry I don't have a magnifier to see your mind, where it's going, what's happening. I'm not a detective. I'm not like ma joogo gurigi ma kula joogo. waxaad ii sheegto ayuu ku salaysan yahay. So waxaan ka bilaabo markaan qofka la kulmayo and yani xitaa before I say anything I said waxa diagnosis-kaygu wuxuu ku xiran yahay you sharing as much information as you can. Adii la wadaagto. I'm not judging you. This is magaranaysa maxaa la yiraahdaa confidential, private. I'm obligated to do that Islamically and legally. As a, you know, I took an oath to take care of you. Yes. So unless someone is in danger, like at the enough to danger, I have to report. I'm a mandated reporter. Yeah. That's the only exception. So it's very important because the minute you omit some information, that may be the misdiagnosis, the cause of misdiagnosis. Yeah. Because adigi baa wixii ka baqaya ama haddii oo kaleeto abuse guriga ka jiro waalidku ka baqayo in isaga ilmaha laga qaado in wixii ilaaliyo when the cause is actual trauma that's going on that needs to be addressed. Yes. So that person is giving you self-serving information. Isagu is ilaalinaya ilmihii ma ilaalinayo ilmihina is suffering. marka anagu marka there's techniques that waa isticmaalno qofkayna yani waalidka dhinac u wareysano ilmaha dhinac ku wareysano yani and then waalidku waxaanu ogeyn dhibaatada ilmaha u geysanaya haddaanu dee dad baa jira iska anti-social iska ah oo magaranaysa maxaa la sociopaths oo carruurta iska laalaayo xunxun way jiraan dadkaasi laakiin majority of parents don't want to harm their kids. No. So those are in a state of whatever state they're in and they're hurting their kids. It's better to come out of it, like to share, so you get the resources that you need. Ilmahaguna uu helo caawimaad u baahnaa and then halkaasay healingku ka imaanaya oo ka bilaabanaya iyo bogsiimadu laakiin aad qarsato wixii qarsad maxaa dhaha waxa qarsataa wuu ku qarsadaa adiga waa meesha ku baaba'aya. So a follow up question to that marka I know that badan hadda dadkan ajnabiga aan la degannaho kale non-profit organizations bay leeyihiin marka mental health waxaan oo kale la dhaho oo dad u taagan inay dadka caawiyaan ee u tagaan ee la hadlaan community-geena anaka ma leenahay waxaas oo la dhihi karo qofkaas meeshaas tag Soomaali ahaan haddaad ka cabsanaysid gaaladii ajnabigii
dad loo diri karo non-profit organization oo mental healthigi waxaan iyo ka caawin kara ma leenahay anaga والله Soomaalidu entrepreneurs anigu weliga shaqaalaan ahaa dad baan u shaqayn jiray Sax. waan ogahay inay soo bixi doonaan xogaa waxayna ku dhacday kala isma ogin yani hadday xitaa jiraan yani anigu cisal ka shaqeeya it's hard to find Somali practitioners iyo Somali ma garanaysaa maxaa la yidhahdaa non-profit organizations that are big enough to house dadka aad u geyn karto oo consulting u sameeya xitaa yani they can it's a dream anigu waxaan jeclaan lahaa inay dhacdo inay xitaa professional a lot of talent baa ka buuxda Soomaalida ku nool wadankan qurbaha ay talentkooda volunteer gareeyaan ay ku sameeyaan meelo dadka isugu keenaan to give your time to assist people xitaa basically guide people on the right ways to do things it's a huge need way waa lagu sameyn karaa masaajidada qaybo ka mid ah masaajid is a facility it's an institution and maxaa la isbitaaladu berigii yani islaamka marka dib ugu noqoto halkaas yani waxay ahayd meel wax kasta dadka lagu bixiyo so masaajidadana should host ay sameeyaan meelo dadka lagu guide gareeyo non-profit organization inaga xogaa yani I can see people are after financial kana qof waliba wuxuu eegaya dollarkii because way ku taagan tahay baashi so that's the priority like way kula tagaysaa taasi you have to give back wax kasta yani xitaa nimcada hesha comes with responsibility yes so I hope inaan dollarkan aan eriyanayno iska yara hadhno It's basically about people with addiction who are suffering with mental health as well. oh yeah the Abdurrahman Warsame Yeah. yeah I think they do it. You know, they usually help people who are homeless. Yeah, So but I was watching one of his videos, Hamala, I know who you're talking about. And a lot of times, Masajid Kamarku, he said, Masajid and Irin just when because a lot of kids or adolescents or Marte, debata or substance adibajira. Not because محل الجري وين ربين but like he need to do محل الجري وحيقة lack of محل الجري help عملها مركا a lot of times مركا إس أركان إني خلدين جين عملها أي ربان إني عاوتان وباهن جين سوقين وحي هذا the closest place هذا المساجد وهاي and then when I watched one of his videos وهاي and the مساجد were the first ones to kick us out عملها نقص حتى wuxuu dhahay kaniisadayaashii soo dhaweynayay masaajidihii ana burinayo dhahay that's why hada yarka hata even wrote a book I think I wrote a book that's called what would you be without here's another thing this I want to add واحد خرافات كي واحد say there was a back in 20 I think 23 give me ahead was it 22 give me ahead I'm not sure exactly but there was a black magician or محل جري wadamada wuxuu ka imaaday xagan western world ka imaaday wuxuu dhahay the only people on weligay aan maartay ay sixir kari waay amala ama wax ku sameey kari waay waa muslimiinta wuxuu dhahay they have this golden aura and anaka markaan qof rabna inaan wax ku sameeyno amala there are strings attached to dadka strings ka qaadana wax baan ku sameeynaa but the second maxal jiray qof muslim ah isku diiday inaad sameysid all of us and markaad qaba is dhahdid meeshi ma wata laba amala that string is gone amala and then there was a video I'm not sure if it's still up but it was going around for like I think it went mega viral hata a lot of people will understand but anaka hadana muslimin it's a lot harder for us jiman wax nagu sameeyaan when we do adhkaars when we do salah wax walba aan sameeyno because there's nothing in this world that literally wax kugu sameey kara malahan when you own creator gacanta ku hayo oo maartay ay ku ilaalinayo haddana rasuulka wala sixray soomahano he برب الفلق برب الناس شفاعت kusoo dejiyo wixii sameey la dhahay waxyaalahaas waa waxyaalaha ay ku soo dageen bo situation kaas ay ku soo dageen ahayd so we have the blueprintigi waxay sanaa but it's just that muhiimadda waxa waa qof professional haddii aad heli kartid adigoo diintaada aaminsan quraankaada isa saarayo isku day at the same time na inaad raadsatid help oo outside aad dhahdid fi dunya wal aakhirah haddii quraan ahaan quraankan hadda ku caafimaad alxamdulillah haddii qof kale u tagtid waxa laga yaabaa qof professional u tagtid meesha wax ka fiirnaysa meel kale inuu wax ka tusiyo inuu ku dooniyo dhibkan ku haysto oo alla rafaadaysi it has nothing to do with this it has to do with maybe family-gaada saa usoo kortay so hooyada ma isku dayda inaad kala sheekaysa arrintan mise waxaan wixiyaa markaas soo baxaayo and you're like okay that's why I'm dealing with this and then wixii isfurfuraya muhiimadda waxaas u keena waxay not to say maxaa la jira waxaas ma jiraan but to say amala markuu wax kuu dhaco markaa wax isku aragtid markaa when you're feeling in a way that are normally ahayn don't assume oo ha ku boodin amala waa sixir iyo waa wax khuraafaada as first initial waxaas dhahdaa
waxaan aan ma haysan jirin sidan ma ahaan jirin maxaa iga khaldan quraankaada akhriso markaad quraankaada akhrisanayso oo isleedahay weli am still feeling waxaygii go seek maxaa la jira help aan ka wadaa taas muhiimada Yeah, hadalka I keena know. waxaas baa Yeah. You would see literally TikTok waxaa ku arkaysaa qof uunayo oo dhahay waa la sixray waan sixranahay saan baan ahay markaad I mean I'm not with qofkaas ani personal ahaan muu aqaani but like before sixirkii aad ku urdin waxyaalihii kala dhan ma soo fiirisay dadaa jira xataa markii lasoo cabaar loo sii raaco substance abuse ay kusii galaysaa qofkii waabo asagoo ma ahan markuu oonayo TikTok dhex fadhiyay Exactly. waxbuu cabsanaa and then later on wuxuu leeyahay mise dadaas uu sheegay wuxuu leeyahay ninka waxbuu isku soo daldalay meeshuu soo furi waa la sixrayuu dheh waa wax kaa dhacsan waayo markii wixii aad cabtid wixii aaminsaneeda soo baxayo Exactly. so questionkayga taasay follow up garaynaysaa can you explain the difference between mental illness substance use disorder and physical illness It's a good question. wax yar baan rabaa inaan ku noqdo masaajidada caawiyey bacaawin waaye iyo church baa caawisay Yeah. and it's unfortunate qof yani it's maxay yidhahdaan one experience bad experience is one too many yes macnaheedu maaha ina masaajidaduna sidaa yihiin laakiin mas-uuliyad baa saaran dadka masaajidada yani diintu waa meesha waa nasteexo waa meesha waa gurigii ilaahay waa dadka inaad ku soo dhaweyso so wadaadadu yani waxay bixin kartaa message ah dadkii diinta ugu dhawaaday saa u dhaqmayaan dad baa jira diinta uga baxa sidaas because of their experience yes, I've it's seen- scary a lot of them are happening hatta especially seen now this generation ها يعني humans are fallible humans can make mistakes diinta maxaa u eedanaysaa dadka yani hadday yani way jirtaa caruurbaa meeshan ku korsaday macalimiin baa jirta caruurta dugsiga ka eriya oo because way dhib rabshad badan yahay xaga u eriyeysaan intee ilmuhu u baahan yahay hadda adigu erido kufaartu raacaya xagee maxaa tahay iyo dhaqan xumo kuwa faartu waaba masiix bay aaminsan yihiin kuwa waxba aaminsanin baa jira صح oo yani iska aaminsan naftayda yeah annihilism yaa la iyo dhahaa atheist ha iyo makanaysa aaminsan adduunku iska dhamaanayo ha kaas iyo atheist qof kasta belief buu haystaa so diintii markaad uga dhigto adiga oo calaamad ku tahay oo de meesha dhammayda loogu soo hagaya aad saa u dhaqanto yani waxay wasakhaynaysaa masaajidada kale dadka wanaagsan ee dadka diinta bartay dadkan waxaynu u caawin karnaa inaynu cilmiga diinta waa foundation anigu yani it's my passion inaan barto diinta ma aqaano scholarship ma sheegayo markaan yaraa waan baran jiray kitaab akhrin jiray yani waa yara fahansanay waan rabaa inaan barto because it complements iyo cilmigaaga yes sida markii horeba u sheegtay cilmigu waa cilmi la barto qofka shakhsiyadaada iyo characterkaaga waa different so diintu waxay ku dhisaysaa characterkaaga iyo dabeecadaada iyo saa u dhaqanto iyo inaad noqoto qof daacada ilaahay daacadu oo camalka u sameynaya ilaahay dirta way kaa dhigaysaa cilmigaagiina way complement garaynaysaa ma garatay taasaan rabaa inaan kaga baxo because a lot of times it's very difficult marka waxaas diinta ay sii dhex gasho alright maxaa u dhexeeya mental illness iyo substance use iyo physical health Physical illness, okay yeah. mental illness yani waxa weeyaan yani buugga la dhaho aan isticmaalno diagnostic statistical manual of 5th editionka oo maraykanka laga isticmaalo ICD-10 baa laga isticmaalaa internationally wuxuu ku qeexay inuu yahay khalad ku dhaca yani it's a disorder in cognition emotion regulation and behavior so basically qofka fikirkiisa dareenkiisa su u maamuli lahaa iyo dhaqankiisa ayay saamaysaa taasoo isku muujisa yani it manifests itself biologically in a physically wax kaasi noqdaan waa qof marka arto inuu seexan waayo a biological manifestation of mental health condition and psychologically inuu qofkii ka aad sheegaysa ee maxaa la yidhahdaa hadlaya isagoo under the influence ah psychologically impacted you the condition and then in a way that is impairing oo ka maxaa la hortagaysa inuu qofku function sameeyo that is in a nutshell waxa mental illness uu yahay waa wax kaa hortagaya maskaxda ku yimi oo saameyn xun ku yeelanaya maskaxdaadu sidii u fakaraysay u dareemaysay dareenka iyo u dhaqmaysay oo markaa noloshiiba dee aad qabto substance use-ku waa a category of mental illness waa mid ka mid ah muxuu saameeyaa sidaasoo kaleeto qofka fakarkiisa iyo ficilkiisa iyo dareenkiisa ka duwanaansha uu kaga duwan waxa weeye cause weeye so qofku markuu mentalka illnesskiisu la xidhiidho maado uu isagu cunay ha noqoto marijuana ha noqoto alcohol maadadii baad wax ka qabanaysaa so waxaa jira depression oo ah caused by alcoholism yani depressionkaas sida clinical aanu la dhaqmo dhakhtar ahaan
way ka duwan tahay in sidaan ula dhaqmi lahaa qof depression caadigiisa u dhacay ama depression wax kale keeneen bas maxaan qofka ku odhanayaa bahasha jooji يعني وين recovery وسميت treatment كي different نقنية so that's the difference the ultimate everything is happening with the same brain مسكح دي بكون عين وقت يجيك قفقها so يعني وحن أنا كلا سعسعين أونلاين مسكح دي يجيك يوحس all of it is occurring in the same body physical محوك قد وين physical conditions كوحك قد وين ووح advancement تيجا in medicine ولا سمية or done waxay ku salaysan tahay physicalka yani waxa la sameeyay maxaa la yiraahdaa experiments or scientific experiments baa la sameeyay oo observable ah or you can validate it dib ku soo noqonayso helayso because maqarasa maxaa la yiraahdaa technology advanced way qalliimo fiican baa la gaaray waa wixii waxda qofku saa oo jirka binaanka inta la soo dhigo la qalqalay meel walba sidoo shaqeynaa waad fahmaysaa it's easy to understand it that's what the difference is so the treatment is more curative qofadu lug jabto waad kabaysaa يعني حاس إنك استو كانسر كويرة دي بدأ يحاجة حتى so what physical condition yes صح why do you think mental health is treated differently than physical health like people normalize physical health right like هادو قفكو هايستو and like not bipolar but like diabetes and stuff like that is like quickly treated but like there's so much stigma around mental health. So I was just gonna ask why is mental health treated differently than physical health, even though they both impact you as a person. Exactly. Even the mental condition impacts you more because it impacts your whole function, right? I think there's a lot of reasons. One of them is because no one wants to, to have their mind questioned. Because that's the waxaan ka shaqeynayno hadii lagu yiraahdo waad waalantahay qof kula hadlaya ma jirto adiga dhow lagu check out baa laga dhigay so you want to avoid that leads to kana this pretend aad isku dayayso yani tough it out iska day samee stigmadan waxay ka imanaysaa fahan darrada dadkii oo isku weakness loo arkayo ayay sii xoojinaysaa dadka wuxuu isleeyahay yani taas weak ha noqonin waxaas oo dhan and the other thing is the reason that it's treated differently is because scientifically we haven't advanced enough to actually have cure for these conditions. A lot of it is trial and error because waxaan la arki karin oo saameyn ku yeelanaysa sidaad u fakarto waxaas oo dhan so it touches like for example nobody had the scientifically we don't know how consciousness works. qofka consciousness maaha material waxa yani mind ka ku salaysan mental illness waa saas u badan yahay so it requires a lot of things like when madaxa wax ka xanuunayo adigu aad xanuunsato madaxa ka xanuunsato wuxuu saameynayaa dadka kuga hareereysnaa bulshada kuga hareereysnaa wax walba ku saameynayaan qof ma doonayo haddii islaan ilmaheedu xanuunsanayo la yidhaahdo sidaad ula dhaqmi jirtay wiilkaaga aniga wax laga sheegay buu odhanaya so qofka ku qoobsan maaha What are the main approaches to treating mental health conditions in young people? And treatment ka mental health ka wuxuu ku muhiim ah oo ay ka yani daweyntiisu aad ugu xiran tahay the right inaad diagnosis-ka saxda lagu misdiagnosis-ku uu badan yahay wax badan baan keeni karaa ka soo wada hadalnay oo ah in la isfahmi waayo dhaqan kala duwan yahay luqadii kala duwan tahay waxaas oo dhan waxa yani hadda lagu daweeyaa dawooyin way jiraan oo lagu daweeyo for example bipolar-ka it's a biological condition there is a mood stabilizers baa lagu daweeyaa daweyn maaragtay berigi hore lagu daweyn jiray seizure-ka oo kaleeto ayaa lagu daweeyaa oo ay ka mid tahay dabako yani different medications mood stabilizers baa la dhahaa lithium mid ka mid ah oo maado caadiyo dee dhulka binaadamka yani dhulka taala ay weeyaan oo qofku cabayo oo ka caawinaysa mood stabilizer ka dhigaysa kuwaas waa mood stabilizer class baa la dhahaa antipsychotic xitaa waa lagu daweeyaa bipolarka qofku hadduu schizophrenia qabo xanuunada schizophreniada ah waxaa lagu daweeyaa antipsychotics oo qofka yani calaamaadka waxaa lagu yaqaan waxa weeyaan delusions iyo hallucinations qofku isla hadlayo waxyaabo sensory ah ayuu dareemayo qof inuu la hadlayo aan jirin arkayo waxaan jirin waxaasoo dhan antipsychotic baa lagu daweeyaa depressionka anxietyga traumada waxaa lagu daweeyaa antidepressants SSRIs kuwa la yidhahdo selective serotonin reuptake inhibitors baa lagu daweeyaa one class of medications iyo other ones oo norepinephrine SNRI way fara badan yihiin so there is a medicine for a lot of it and still being studied ma garanaysaa in combination especially depressionka kulligood you want to combine the medicine with therapy because therapygu waxay kaa caawinaysaa waxa kane hadduu environment based yahay to make it make sense to you
and kind of heal your brain that way. Because a lot of it is like, you know, what depression, it impacts your thinking, right? And when your thinking is so negatively focused, you forget to come out of it. Yes. The depression takes a hold of you. Depression ka ku qaadanaya adiga waxaad noqonaysaa qof un waxa ku focus garanaya. So when a person who is professional talking to you, that person you know, helps you identify where those negative thoughts are coming from. Xagee ka imanayaan? Negative thoughts are based on what we call core beliefs. يعني aaminaadu qofka aaminay way ka yimaadaan. Core beliefkiisa waa la oranaya okay xagee ka imanaysaa maxaa kugu dhacay qofka marka waxay noqonaysaa inaad noloshiisa dib u raaco. Okay goormaan aaminay inaan ahay ma garanaysaa waxaan awoodin dadka aamina yani ma samayn kara waxaas xagee halkaas ka mid miyaa lagu yiri. You question and I can never do that. Always never iyo waxaas iyo ma jirto yani wax walba is bedeli karaan. So that person helps you learn ways to understand your thoughts. Because qofka bini'aadamka xalay maskaxdiisa waxa ku soo dhacda ilaa 6 million of thought a day. So can you imagine? We don't act on all of them. Yeah. But when you're depressed, you want to act on those bad ones. It takes control of you. Yeah. So wuxuu qofka caawinaya reframe inuu ku sameeyo ku fahansiiyo and uu ka dhaadhiciyo and okay question you and then you learn ways to kind of focus on the positive. And there's a huge field where therapy go waliba anigu therapy ga well versed ma ihi way ku baraan the basics markaan schoolka tagayay but there's a lot of people who are like psychologists who are really good at this, therapists who are licensed to do these things and they do great work ka caawinayaan garanaysaa. So here's a follow-up question. You said medication ka waxaad mix garaysa ku dartaa maxaa la jiraa therapy. Can you like in simple terms tell us how important it is therapy is for dadka especially dadkan ma fahansanaan dadka Soomaaliga yani therapy waxay isku haystaan qof baa u sheekeynaya maxaa uga hadlaya maanta waxay ka sheegaya wadankan markaan joognay dariska u tagaysay u sheegaysay and islaantii oo ku imarsayada yeah very intrusive in the society su'aala lagu weydiinaya those were healing you know healing practices hadda xal lagu leeyahay albaaka xitaa idinku yani advance notice ma lagu siin jiray Soomaaliya maha lagu soo qaraaci jiray adiga ku haysato qofkii hadduu abuse meesha ka jirto islaantii baa albaaka soo jabisay waxaas ma dhacayaan hadda you isolated to yourself. So when you need therapy because how do you deal with all these things that are going on if you don't go to a professional who is can fulfill those roles dadkii wadankaygan ku haysteen fulfill garanaya. A therapist here is professionally trained. Wala tababaray sida uu ku garanaysaa uu ku daweynaya uu tababar ka soo qaatay and waxay ka caawinaysaa qofkii inuu maskaxdiisii barto and inuu khaladaad aanu arkaynin inuu arko because qofkan waa la train gareeyay moogtahay huge way waxa lagu leeyahay research waxay tiraahdaa yani medication are 30% of people get good efficacy meaning ay dawooyinka caawiyaan 30% 70% qalad ma caawiyaan 70gaas therapy hadday ku daraan the percentage skyrockets like 90. So it's a combination of it in addition to lifestyle changes. So qofku noloshiisa wax ka bedelo eat right healthy waxa soo it's a big deal. And then one caveat aan ku dhaho it is important qofka therapy-ga uu yahay inuu yahay qof yani value aad weyla wadaagtaan oo aan muslim inuu yahay oo dhaqanka kula fahansan ka sax jirta. Therapy is only as good as your therapist. Not every therapist is the right match. So finding the right therapist goes a long way. Lakin therapy it's a necessity waan walaa Soomaaliya. qaali qaado ka hor podcast-ka ka sheegay dadka badan waxay u maleeyaan therapy marka u tagtid sirtaada inuu dadka kale u sheegayo oo intuu dadka u tago u dhahayo war qof ay imaado maanta saan dhacay confidential wax la dhahay jiro oo la saxiixayo qofkan hadduu waxaas uu share garay lawyer therapy dadkaas oo kale wixii u sheegtay hadduu qofka la share garay lacagaad ku helaysaa you can sue them for malpractice. Yes, that's what I'm saying. So wax la dhahay ma jiro qofkan cause yara xasuusta hadda ka hor oo xaasla ahaa baan ku dhahay niyahow maad u tagtiin maxaa la dhihi jiray therapy-gaada iyo xaaskaada cause waxyaalaha aad sheegaysid you need qof inuu fadhiisto u process gareeyo waxyaaluhu sheega waxyaalo waxa way professional help u baahan markaas wuxuu dhahay aniga xaaskayga waxa anaka sameeyna man qof kale uga sheekanaa aqaanin wala said maybe waxay ku jid waxay ku furi kartaa hata diinta way qabtaa ina stages amartid before aadan isfurin. So therapy stage ku kamid yahay amaraysid Soomaaliya soo marka taas oo dhahay therapy sirtaada ma sheega banaanka ma soo dhigaay diinta xitaa ku amraysa inaad qofka sirtiisa sheegin yani marka eego
يعني code of conduct almost like waxa moodaa in kitaabkan laga soo qaatay Yeah. oo lagu qoray it's wrong qofka sirtiisa yani astur ina asturto weeye and then markuu leeyahay aniga xaska waxaan soo sheegnay de waxa intimate lama sheegaye wuxuu hadduu xun yahay de hal sheego Yeah, exactly. wax dhibka in la helo waaye sidii problemka loo xaliyo soo ma dhibkii oo la helin sidii problemka loo xaliyo haddana qof professional marka la hadlaysid waxyaalo badan uu la soo dhiilgareeyay saa sheegtay your therapy is only as good as maxaa la dhihi jiray therapist-kaada kuwa way jiraan oo saas u fiicneen but therapy fiican haddaa heshid arooskaada laga yaaba inuu badbaadiyo oo dhinac kale wax kaa tusiyo oo meel kale wax kaa tusiyo adigina dadka badanaan waxaa u malayn therapy markii la aadayo isbaada gabadha adiga naftarkaada xataa you know it's been helpful. ragga waxay ka baqayaan inaa daciif like Does it always depend on the experience of the therapist? Like say qofkan like 5 sano joogay ama 2 sano joogay. Like does it always depend how good the therapist is based on how long they're doing this profession? waa ka mid khibraddu way kusii kordhisaa qofku markuu khibradda leeyahay oo the more you do it khibraddu waa ka mid and then personality-gana way ka mid tahay dad baa jira yani shaqada ku wanaagsan oo they're born to be a therapist oo ilaahay yani empathetic ka dhigay oo wanaagsan yani research baa lagu sameeyey waxa kan they're still studying you know what makes a good therapist ma garanaysaa and taasoo ku xidhan tahay and then the other thing is qofka therapist-ka inuu does their own work oo haystaan maxaa la yidhahdaa their own supervisor, someone who's monitoring, you know, so their biases don't get in the way. You know, humans, we influence each other. This discussion, I hope it's producing good neurotransmitters, but we can, you know, it can go the other way. Marka, يعني qofka bini'aadamka ahi mas'uuliyad baa saaran qofka therapist-ka ah inuusan harm garaynin qofka hor fadhiya. Taas marmar is ogeyn baa dhici karta. So supervisor keeps them in check. So experience way ku xidhan tahay waxaas oo dhan. Su-aashayda xigta inaan gelin hal midaan rabaa inaan ku sii weydiiyo qofka markii la daaweynayo hadday daawada ka hadlaysa right qofkii markii la daaweynayo isbitaalkii takhtarkii waxaasoo dhan waxooda way qaadan karaan how important is family-ga iyo guriga qofka daawada markay u socoto guriga uu ku nool yahay iyo family-ga how supportive or how important uu yahay supportkooda iyo qofkaasi ula dhilgareynayaan isbitaalkii waa geysay laakiin dhinacaana are we forgetting that side of things? Exactly. It's a very important way because isbitaalka markaa joogto waa time limited annaga isbitaalka waa crisis stabilization basic qofka inaad crisis ka saarto the real work happens at home and in the community so shaqada wanaagsan haddii qofku noogu soo yimi oo kale suicide attempt ama suicidal ideation oo intense you have to environmentiga waa inaa adjust garayso haddii overdose jirto dawooyinka waa inaa qafisho guriga waa inaa ka hagaajiso you have to maxay dhibaatada ugu weyn guriga family waa in iska warhayaan waa inaa yani qofkii aad ogaato inay waxa kan real yihiin xanuun yihiin hadduu suicide qofka aadan ka baqin inaad weydiiso because that may be the only kind of last resort aad qofka badbaadiso dad baa ka baqoo yiraahda haddaan weydiiyo ama anugu ka dhaadhiciya maxay saxba kama jiraan research badan baa la sameeyey weydiintaasi yani they're craving it oo qof inuu notice gareeyo because they gave up like one of the delusions qofka markuu muslim yahay waa inuu aamino tomorrow inay tahay ilaahay qaybka ilaah baa og tomorrow inay xun tahay anuma ogi so inaan iska dhaadhiciyo inay xun tahay yani qaybka ilaah baan ku wajan garanaya ma garanaysaa laakiin depression qofka ah isma laha saa samee so it's that person adigu isku ka halaynaya inaa xusuusiso ku tiraahdo saa sameyn so it's vital haddii noqoto bipolarka xitaa symptomka iyo inuu keep up gareeyo qofka hurdadiisa waxaas oo dhan waali yani qofka guriga kula noolay big deal weeye qofka yani markaan interview ka qaadano hadduu psychosis yahay qofka familigiisa collateral information baa la dhahaa isagan kasoo collect garaynaa saas wey so question can even though I think how does treatment differ between mental illness and substance use disorders waa run yani waxay isku kala duwan yihiin oo kaliya isu imanayaan because substance use-ku waxay keentaa calaamaadka mental illness ku keenaan like I said alcohol can induce depression and maxaa la yiraahdaa waxa la jiro dhaho withdrawal symptoms baa kugu dhacaya dawooyin gaara loo isticmaalaa intoxicant markay tahay waa in emergency lagu geeyo qofku hadda alcohol intoxication marka ku dhacdo seizure baa kugu dhici kara it very because it can suppress your breathing neqaska ku dhigi kara so emergency treatment waa u baahan tahay so dawadeedu way kala duwan yihiin oo halka kan waxaa laga yaabaa substanceska inaad samayso qofka inaad consult la samayso dad baa jira dually diagnosed they have a substance use disorder and mental illness so you have to treat the substance use first and then the mental health after that because
you know waxaad samaynaysaa markaad dawo isticmaalayso waxa dawooyinkan ku islaana ku daweeya mental illnesska maxamed tarayso because what you using maadada isticmaalaysaa maskaxday ku act garanaysaa so kuwii kale iyada barxayso ka power badan Yeah. because it's not regulated all of that so you have to remain sober ana ka tato waxan and then maxaa la yiraahdaa in taa la daweeyo usually waxa lagu daweeyaa in rehab centers baa la geenaya qofka si looga fogeeyo wixii marka uu yani safe yahay weeyaan in dawooyin way jiraan la isticmaalo opioidka dawo qofku methadone oo kale buprenorphine naltrexone ha dawooyin baa jira la isticmaalo in alcoholka iyo waxa loo isticmaalo in xitaa dawadan la dhaho marijuana waxaan hadda aad ku badan oo socially caadi noqotay waxaan isticmaalnaa NAC supplement oo xitaa Amazon $10 laga qaadan karo oo cravingka marijuana ka biinayso la dhaho N-acetylcysteine baa loo taagan tahay N-acetylcysteine NAC for short NAC it helps it's a maxaa la yiraahdaa it's a supplement weeye and FDA ma support garayso but we use it because we've noticed it helps with reduce cravingka marijuanada waxyaabo kalena waa loo isticmaala hadda qofka overdose ku sameeya maxaa la yiraahdaa Tylenol oo kaleeto taas waa antidote in laga soo meedho taasaa la siiyaa so waa wax safe ah qofka maxaa la yiraahdaa antioxidant badan bay leedahay way caawinaysaa so dadka waan u sheegnaa inay taa qaato and then in the hospital waa u prescribe garan karaa laakiin outside they can buy it from Amazon so there's ways in medicine wise lagu treat gareeyo and rehab waxaan u baahanay waad ka hadlaysay maxaa la yiraahdaa community maxay qaban kartaa counseling centers and maxaa la yiraahdaa Alcoholics Anonymous Narcotics Anonymous kuwa equivalent ah oo loo sameeyo dadka oo laga caawiyo si qofka loo sameeyo environment sober ah qofku marka garanaysa addictionka kaga badbaadi karo haddana mideeda kaleeta I think markay balwadda noqoto annaka delusional aan nahay because uma maleyna balwadda in ay waxyaalo kale sii keeni karto we think balwadda oo balwad buu leeyahay caadi laga dhigaa laakiin qofka markuu balwad leeyahay hadda waxaa laga yaabaa in la sii qariyo balwadda kale hadda qofka markuu qamri cabo camal family inay ogiina laga yaabo uu qarinayo laakiin meel oo banaanka la isku soo baxayo caadi too dad kale oo balwad leh uu la kulmi karo uu la sheekeysan karo oo wixii soo maray asaga uu ay ka wada hadli karaan is better than dadaan balwad lahayn markaa la sheekeysanaya they might judge you inay ku judge karayaan laga yaabaa so community They feed off each other, yeah. A lot of dhalinyaro hadda waxay isticmaalaan dinar saas ma but it's still substance waa nicotine maaragtay intay xaggan gashadaan ay and it's like use tobacco version waaye balakini tobaakada hadda wax cuna ma lahan balakini hal kaloo baashi caddeena xaggan la gashana way ku hayaan a lot of times waa arkaa to basically stay awake sidii the job was tobaakada samayn jirto oo kale sameeyaan and a lot of people markay sameynayaan they don't think that as a maxaa la jira substance oo ma malaynayaan waxay u malaynayaan camala waxo like caffeine camalaha but then what kind of caffeine haddii aad iska daysid hal maalin ku noqonaya wixii side effects waan adeelaysid those kind of things hataa dadka just because qof aa ku aragtid sameynayaan that itself is also a substance asagana waxaan arkay like dhalinyaro weligood sigaar cabin amba isticmaalin or vape garaynaya I always like I always got confused by it because the whole point of vaping is like so you can stop smoking so vape bilaaban iyagoona mataqaanaa isticmaalin and I think that's from the environment like qofkay asxaabtooda yihiin leeyihin oh if my friend is doing it I should as well 100% true so I would say also be aware of your child's like who their friends are or where they go helicopter parent just be friends with your kids especially when they're teenagers so you can be aware of like what they're up to common things for like mental illness xanuunka maxaa la yiraahdaa maskaxda ku dhaca dhimar ku dhaca can lead to substance use because you're trying to self-medicate vape hadday noqoto maadooyinka ma kala aqaano anigu wax kusii dhex jira kuwa jira xitaa marijuana wata iyo kuwa iska flavor caadi ah and it can lead to that and then the other markaa substance qaadato makes the mental illness worse or can induce it keeni kartaa adigoon qabi jirin waa kugu dhacaysaa because now your mind is altered your chemistry is altered because of these things isticmaalayso badanaa dhalinyaradu waxay u isticmaalaan waxay u bilaabaan markaan weydiiyo ku dhacdo goormaa kugu horreysay asxaabteeda samaynaysay aan sameeyey waa sidaa hadda tiray waxay ku odhanay qayb yani guriga dhib badan ka jirtay I wanted to cope
you know, it's a way of coping with it ay say Okay. ugu dulqaataan Yeah. and then marka hore ku yara dejinaysaa laakiin hadhow it becomes a problem itself Yeah. self-fulfilling waxay noqonaysaa a circle I have a family member who oo cabaya vape-kaas and markaan ku dhaho ma iska dhaaftid koodii waxay ku bilaabaan mental health kasaa sheegaysid say u dhahayeen cidaan la sheekaysta ma laha haddana gadaal dambe waxay ku leeyihin bahalkan haddaan istaajin waayo haddaan istaajiyo way ii dhammaatay nolosheeda way u dhammaatay like I'm gonna think about everything that's going on Yeah. so dad qaar waa saa sheegta waa waxay u doonaan daawo ahaanay ka raadinayaan but it's not daawo basically Uh-huh. kusii It xanuujinaysa causes more problems than so helping. su-aasha ugu dambeysa waxay tahay what message would you leave for the community about mental health awareness and support wallahi dhegaysta podcastka halkan oo kaleeto ka hadla kashe yani maxaa la yidhahdaa it's a serious condition anigu waxaan aaminsanahay could be biased but it's more important than anything else it can waxay xitaa saameyn kartaa beliefkaaga oo kaleeto dhaqankaaga dadka kugu hareeraysan waxaynu nahay dadka inagu hareeraysan haddii ay isku kaa ridayso adiga iyo qofkii xaaskaaga ama odaygaaga maxaa ku haray haddii adiga carruurtaada isku kiin ridayso maxaad haysataa so nafta waa muhiim in la daryeelo la ogaado waxyaabaha xumaynaya ama keeni kara ay ka mid tahay drug aan hadda ka hadlaynay ay ka mid tahay inaanu gurigu noqon meel dhow oo magaraysa dadku isku dhow yihiin oo yani aan laysku ciqaabin aan laga dhigin jacaylka iyo waajibka laysku leeyahay mid conditional ah uu noqdo mid yani unconditional ah and then aanan expect garaynin aadan rajaynin in wax walba perfect yihiin dunidu waa full of challenges marka challengekan waxaa laga bixi karaa iyadoo aad first of all responsibility diinta waa ku sheegaysaba you have a responsibility on yourself qof kasta waxbaa la raaciyey adigaa lagu raaciyay marka hore inaad naftaada respect garayso physically waxaad cunaysa waxaas oo dhan and then waxaa lagu raaciyay oo kaleeto dadka kuga hareeraysan inaadan noqonin mid dhibaato u keena so naftaada teekargaree nafta yani tan messagekan anigana way igu socotaa all of us are work in progress nobody is perfect I say these things I studied it a lot of it can waxay ka mid noqon kartaa anigu waxaan la istargalaynaya ma garanaysaa all of us are like mental illnesska lagu sheegayo mental health conditions we're all going through it it doesn't mean that we're clinically needing to be hospitalized or take medications or go to do these things but actually therapy hadda haddaan ku noqdo it helps you thrive thrive in life you don't have to be clinically kind of debilitated to need it so waxaan oran lahaa yani pay attention to it it's important it's vital ilaahay hayna badbaasho dhibaatooyinku badan yihiin hooyana waa tahay professionalna waa tahay at the same time right so hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmaha what would you say is a icebreaker cuniga conversation bilaabi kara markay noqoto mental health mise and all of this stuff wax oo cunigaada said u approach gareyn kartaa because I feel like meeshu dhibka ka imaada waxay tahay hadalkii horta suu ku bilaabanaya ilaan dadkeen waalidiinteedan badanaa iyo ilmihii nagama dhaxeeyo maxaa la dhahaa conversation so conversationkaas suu ku bilaaban karaa oo loo dhihi karaa conversationkanan saanan ku bilaabeynaa say familigii ay u fadhiisan karaan intay ka bilaabi karaan wallahi waa su-aal wanaagsan waxay ku fiican tahay inuu ilmuhu dareemo inuu la hadli karo waalidkiisa aanu ka baqin taasna yani maaha mid maalin kaliya lagu bilaabi karo waa mid waqti badan u baahan laakiin haddii aadan samayn jirin berigii hore macnaheedu maaha inaa ha ka quusan laa taqnadu min raxmatillah naxariista ilahay lagama quusto mar kasta waa bilaabi kartaa so waxay u baahan tahay inuu qofku isagu noqdo humble waalidku you need to work on your own ego and tiraado okay not gonna get mad hadduu ilmuhu la hadlo xitaa haddii wuxuu kaa sasinayaan that requires inaad adigu naftaada ka shaqayso then hooyada keliya maahae waxaan odhan lahaa waalidka xitaa haddii la kala tago ilmaha is important needs both of you inaad isu timaadaan oo noqdo aad wadaagi kartaan wada hadal yani dhibaatada tan ah parental alienation oo kaleeto in waalidkii la enyeelgale kii kale waxaan ka sheegto it doesn't help anyone mabi isu xanaaqsantihiin labadiinu dacwaandadiina idinku isla raadsada caruurta meesha ka saara so dhibaatadaas way inagu badan tahay I think inaga xitaa inaguma khaas aha dadka communitiyada oo dhan bay ka dhaxaysaa inagu haddaynu muslim nahay waa inaad qofka haddaad kala tagtaan macnaheedu maaha inaad cadaawad isu qaataan mas-uuliyad baadna saaran carruurta markay waaweynaato
especially aabuhu waa muhiim inuu guriga yani ka warhayo carruurta haddaan guriga joogin kas waa u baahan yihiin wiilasha especially role model buu yahay gabdhaha oo kaleeto role model buu yahay dhaqankaaga bay mimik garaynayaan so hadalku culture buu yani waad culture waad ka dhigi kartaa yani it's humans understand like hadda waa isla hadlaynaa soomaaliduna uma baahna introduction hey salaamu calaykum barti baa ku bilaabatay maxaa u diidaysaa carruurtaada inay la hadasho uga baqaysaa so ma insha allah ilaahay isu keen sakharo The thing is, like, sometimes whenever you're trying to have a conversation with your parents, and then that's where the argument starts. Yeah. But I feel like my parents did a good job with like when it comes to like having a conversation with them. I knew I like being alone. Yeah. And my mom always advised me against it. She's always like, don't isolate yourself. Oh, this is not good, you know? But I would say just get to know your child, like their personality and stuff like that. And for the child as well, try to understand where your parents are coming from. Exactly. Because our parents, they have this innate fear of like, because like, right? Fear baa lagu soo koriyay. Yeah, so because of the fear they were raised with, now they're like, I guess, trying to raise their child with that or trying to do something with that. And it's like, your child is safe and they feel safe and you should also just communicate with them instead of trying to. haddana aniga a lot of times when we post this kind of videos of ilmaha laga hadlaya sida loo soo koriyay dad badan oo waxaa jira commentiga dhaxayo anakaba waan soo kornay caafimaadaan qabnaa caqligeeni waa kana anaa waxaa rabtaa cunug inaan daba socdo 24 saac aan la aniga ila soo sheekaysta waa kana waa fiicanahay isaga ciqaab samiya adiga environmentiga ku soo korto cunigan kuma soo korin sida u soo korto uma soo korin opportunityga haysatay macnaha dadkii waa different generation different culture different society lagu jira so marka anaga waxaan oo kale sheegayna macnaheeda ma inaan ku dhahayno niyahow cunigaada bedel mise dhaqankaada bedel ma macnaha waxa waaye say ula jaan qaadi kartaa cunigaada dad kale buu la dhaqmayaa oo maskaxdooda caafimaad leh cunigaada hadduu uu ka liito waxbarashadiisa hataa liidanayso confidencegiisa liidanayso marka muhiimadda waxaa waaye inay un cunigaada just because of adaa soo koray micneheeda maaha asagana sidaan ku kori well said waxaan kusoo conclude garayn lahaa in qofka yani sidaan idhi soomaalideenu introduction ma baahnin jecelnahay inaynu qofka qancino qofka markuu stranger yahay kaa yahay it's easy to because they don't know your buttons they don't know magarasa waxyaabaha weaknesskaaga waxaan qofka good characterkiisa waxaa lagu ogaada si uu la dhaqmo familygiisa so kulligeen waana aanu soo jeedinay waxaa weeye be as good to your family as you could be to a stranger because they have the first responsibility. I know what you mean, wallah. So thank you so much, Khadra. That was mashallah. أنا كان ودنا فائدة that كانوا فائدة not only audience كمان أنا كان نفتر كأنا أبو واحد فائدة سنة. Thank you so much. We appreciate you coming out. وكم هتسنتهاي and you know she's on social media platforms كجرتا وسوشيال قرينا all her social medias. مهمة وإن لقى فائدة ستا المعافمات لحد يلا طلو. waxaa soo baxaya shacab caafimaad leh so insha allahu tacaala episodekan we dedicated to the mental health iyo ilmaha iyo caruurta koriskooda and once again we say thank you to Khadra Hamdan Khaliq and make sure you subscribe make sure you follow make sure you maxaa la dhihi jiray like the video and wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu